maray degmada Sayla iyo magaalada kale ku toodan hadda waxaan ku maraynaa socodkii dambeeyay bariya cune waxa naga daba yimi wakiiladii inantii hibaaq Yusuf Aadan oo ku nool Australia oo inantii nagu deeqeen labada maqsin ee saldhigga inuu nagu koriso wax qabad badan ka wata hargeysa xitaa sala sheegay wadada inaan xal waxba ka qabanaysaa baa leeyahay wax badan qabanaysaa walka wax ka soo saartay ilaahay khayr ugu bedelay waxa ka wakiila gudoomiyaha horumarinta gobolka degmada Sayla Cabdiraxmaan annaga ka gudoomiyaha Cabdiraxmaan jazaak Allah khayr ilaa iyo badii adiina kala khayr Allah bedelo idinkuna waa mahadsantiin walaal inta noo dhisay sana deegaanka iyo walaal noo dhisay shirkadana waxa leeyahay waa ku mahadsantiin laakiin waxaad ka rabnaa guulis saldhiga oo la xordin oo dhagaxyo basbaato in sha Allah bismillaah kariim waxa weeyaan horta iminka dhex joognaa aynu arkayno shalay meeshaas abaar bay hayn nin istaagi karayay iyo nin joogso karayay midna muu jirin ilaahay baa nooleeyay oo soo nooleeyay wadinkaas oo arkaysan oo cuudkii iyo calafkiiba laga helayaa maanta waa alxamdulillaah rabbil aalamiin waxa weey horta in ilaahay mid loogu xuso ayaa loo baahan yahay qofkii kasta ee waxay noo soo taray inoo soo kordhiyana inaynu sida gudoomiyuhu sheegay ee uu nooga gudoomay ee inantaa uga mahadnaqay inaynu u mahadnaqno haddii uu dawlad ka socdo iyo hadduu dad rayida labadaba ka socdo inaynu ugu mahadnaqno loo baahan yahay waxa weeye mahad weyna ilaahay baale in bini ummadana waxa weeye waxa dabeecooyin bay leeyahay marka roobku dee barwaaqada ilaahay na siiyo beeraha iyo jaaradu aad baa loo soo kordhiyay marka waa la wada wadooyinka xitaa waa la xiraa waana la isku qabsada dhibtuna way badataa war waxaan leeyahay inay ilaahay ka cabsada dhulka inta nooshiin iyo inta hadaa dhimataan iyo hadaa nooshiin ilaahay baa idinku weeno idinku filaysiin waanu idinku filan yahay manfaciyo maalba uu idinku filaanaya taana hal iska ogaado ilaahay laga yaabo mahadnaqana waan idinku gudoonay insha Allah bismillaah kaliin mashaariicduna way soo kordhaysaa imika waxa kale aanu degmada u wadnaa oo gudoomiyaha imika aanu sheegaynaa laba galaas oo waxbarashada dadka waaweyn oo iyagana macallinkii dhigi lahaa in Hargeysa oo soo dirto 3 maalmood in 5 maalmood oo seminaarana uu soo galo gelinka dhammaan dadka waaweyn iskuulka uu ku dhigo iyana waanu wadnaa maanta iyadana idin wadnaa MCH kina insha Allah bismillaah kaniisana uu ku daba jira barkadii waati leedin furay maalintii dhawey wax fara badan bay idin nimco fara badan bay idin manaysa haddii dadku ay ilaahay ka cabsadaan daacadna ahaadaan wax waliba way hagaagan waa inoo dhamaanaya insha Allah bismillaah kaniin assalaamu calaykum